asxaabta ku xiran janalkeena Daily News kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay dagaalo ayaa ka socday gobolada dhexe ee dalka. ninkan arkaysaan waa mujaahid ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, wuxuuna miina qawaariijta shabaab shacabka ugu aaseen wadada u dhaxaysa Guriceel iyo Ceelbuur oo neecawda xoreyntu ku sii fidayso. bal qiyaas farqiga u dhaxeeya mujaahidkan bixinaya iyo qawaariijka galiyay miinada halkan. ninkan wuxuu xoogiisa iyo aqligiisa u huraya shacabkan ay mar walba nafta u keenaan ciidan qawaariijta ah. halkan waxa ay ku duugeen miinooyin si ay shacabka iyo askarta dawladda ay ugu la'aadaan. ninkan waxa uu rabaa in uu badbaadiyo shacabkiisa oo uu ka bixiyo halkan aad u jeedaan miino. wadooyinka oo dhan waxa ay ka buuxiyeen miinooyin, sidoo kale guud ahaanba waxa ay gubeen ceelashii, waxa ay gubeen guryihii. markaas ayay ku leeyihiin diin ayaan u dagaalameynaa. ilaahay ha ka qabta ummadda Soomaaliyeed. maalmihii ugu dambeeyay askarta dawladda iyo kuwa macaamiisleeda ee shacabka ah ee u bareeray in ay la dagaalaan ayaa ku sii fidaya guud ahaan gobolada, iyagoona qabsaday meelo aad u fara badan. sidoo kale waxaa la soo sheegayaa in al-shabaab ay dib isku soo abaabulayaan. dad askar aad u fara badan ayaa qawaariijta laga laayay oo laga baabi'iyay. xaaladda waxa ay maraysaa meel aan caadi ahayn. mar dhowna waxaa la rajeynayaa in ciidanka dawladda iyo shacabkuwa ay guuleystaan. ilaahay ha naga qabto ummadan loo soo diray shacabka masaakiinta ah. waxaad arkaysaa aabbe dhahayo ilmahayga ayaka ayaa wateen, inkastoo maalin dhaweeta 27 caruur ah laga soo badbaadiyay. sidoo kale madaxweynaha dawladda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuudna waxa uu sheegay in aysan wax tabar aysan lahayn maadaama askarta al-shabaab caruurta ay afduubteen laga soo badbaadiyay. waxaana la ogaaday inaysan wax tabar iyo awood aysan lahayn, laakiin mar dhow waxa uu sheegay madaxweynaha in la soo afjari doono, inkastoo u badan yihiin gobolada Jubbooyinka loogana tabatagi doono. warbixintaas ayaan iga daba geenayaa asxaabi.